السلام عليكم وبركاته كلنتي وعن oo wanaagsan kusoo dhawaada mar kale Soomaali Nadwo Group oo idin la diyaaraha inay maanta idin soo gudbiso software kaasoo ah GNS3 kaasoo ka anfacaya in aad practice ku samayso routers kuwaasoo ku shaqeyn doona images sida kombiyuutarada ugu shaqeeyaan OS-da sida XP Windows 7 iyo wixii la mid ah saasoo kale aysan wuxuu ku shaqeynaya mataqaana image same routersada saxda ee lagu shubo marka hore waxaan tagaynaa my computer civilization GNS3 waxaad tagaysaa mataqaana pin oo meesha uu kugu jiro mataqaana GNS3 haddaad u baahan tahay xagga soo download garaysan kartaa website-da Google oo kale ku raadinaysaa haddii kalena waxaad samaysanaysaa mataqaana asoo software oo mataqaana CD ayaad helaysaa pin ayaad tagaysaa kadib waxaa kuu soo baxaya mataqaana GNS3 0.74 Win32 kabacdi waxaa ku siinaysaa double click yes ayaad leedahay next ayaad leedahay every next install waxaa kuu soo baxaya mataqaana flash ka caawinaya mataqaana inuu si toos kugu download garayso next ayaad leedahay next agree install finish GNS3 markaas automatically ayuu ugu shumayaa PC-gaaga uu dhameeyay finish kadib waxaad tagaysaa mataqaana desktop-kaaga waad aragtaan oo malaynaa GNS3 waxaan kusoo shubanay PC-geena GNS3 calaamaduu leeyahay qaabku u samaysan yahay waa sidaas asaga waxaan ku sameynaynaa double click siinaynaa waana aad u culus laba step ayaa jira stepka koowaad wuxuu ku leeyahay test garay in mataqaana si toos uu kugu shumay iyo OS-da mataqaana image-ka ku shub marka koowaad waxaan doonanaynaa waa test garaynaynaa waxaan leenahay dynamic waxaan doonanaynaa mataqaana koodan waa inaan test garayna okay test ayaan leenahay okay waa test garay waa mataqaana success waad aragtaan oo malaynaa after that waxaan leenahay QMQ aad tagaysaa asagana sidoo kale test ayaa leedahay wuxuu ku leeyahay successful okay apply ayaa leedahay okay mar kale waxaan tagaynaa mataqaana image sidaan ugu shubi lahayn waa step 2 ayadana image ayaa dooranaynaa waa aragtaan oo malaynaa meeshan image-ka wax image oo ku jira ma ay jiraan marka waxaan sameynaynaa mataqaana parallels aan leenahay after kabacdi waxaan tagaynaa OS-da meesha ay nagu jiraan meel walba aad dhigan kartaa mataqaana desktop-kaaga ama mataqaana partitionadaada mataqaana FID wixii lamid ah waxaan tagaynaa mataqaana 1700 waa mataqaana router kaliya ku siinaysaa open ayaa leedahay wuxuu ku keenayaa halkan image files save ayaa leedahay si toos wuxuu kugu save gareynayaa mataqaana image model kadib waxaa kusoo laabanaysaa sidoo kale parallels aad leedahay next image ayaa mataqaana leedahay open save dhammaan sidaas ayaa usoo save garaysanaysaa mataqaana image-daada maxaa yeelay routerada meesha kugu jiro dhan waxay ku shaqeeyaan image-yadan hadda aan kusoo shubeyno PC-geena waxaa leedahay sidoo kale save images aad leedahay open save kala soo iska xiraysaa kabacdi okay waad aragtaan oo malaynaa GNS3-gii inuu dhamaystirsan yahay marka kabacdi hadda waxaan rabaa inaan test gareyno aan routerada waxaa kasoo qaadanaysaa halkan routerada waxaa ku yaalaan halkan 170 image-kiisa wuxuu kusoo shubnay 126 360-gan ayaa ugu fiican ayaan soo qaadanaa oo la testa waxaana ku jiro mataqaana version-kii ugu dambeeyay ee 2 alif wuu kusoo jiidaysaa kabacdi wuxuu ku leeyahay router 1 lambarka kuu siin doono waxaa waa mataqaana router 1 halkan waa laga start garayaa markaa u baahan tahay mataqaana inaad shido routerkaaga halkaana ujeedin asaad taabanaysaa kabacdi halkaas mataqaana waxay noqonaysaa cagaar routerka uu ku shidan yahay markaasaan u shidno computerkeena wuxuu noqonayaa istaag waxaan arkaysaa mataqaana in ramkaaga wuxuu la computerkaaga ramkiisa hadduu 2 GB yahay ramka 2 GB oo dhan waxaa qaadanaya software computerka marka wuxuu kaa noqonayaa culays
CPU-ga fiir waxaan maraynaa 92 ilaa 91 boqolkiiba 91 waxaa isticmaalaya software-ka marka computerka oo dhan wuxuu kaa noqonayaa istaag si mataqaanaa oga baabi'iso maaragtay waxaa loo sameeya idle waxa la yidhahdo mataqaanaa waxaa leedahay right click-aa ku siinaysaa waxaad tegaysaa idle pc idle pc-ga mataqaanaa saan ayuu kugu furanayaa maxaa yeelay idle pc-ga haddaad ku sameynin routerka computerkaaga wax kale oo aad ku sameyn karta ma jiro computerka o dhan wuxuu kaa noqonaya istaag ma fahamsan maxaa yeelay processorka iyo mataqaanaa ramka oo dhan waxay la qaadanayaan mataqaanaa GNS3-ga waxaad furaysaa halkan haddaad aragtid starkaas 1 2 meeshan starka meesha kuu saaran maaragtay ayaa mar walba doonaysaa haddaysan star kuu soo bixin mar walba waad ku celcelinaysaa apply ayaa leedahay okay ayaa leedahay wuxuu ku leeyahay mataqaanaa has been applied in the router 1 okay ayaa leedahay waxaan ku laabanaynaa mataqaanaa ramkeenaan ku laabanaynaa intuu hadda maraya maxaa yeelay boqolkiiba 90 kan waxaa isticmaalayay mataqaanaa GNS3-ga hadda wixii ka dambeeya wuxuu dib ayuu usoo dhacayaa marka ayni soo dhaweeyay soo aragtaan malena 91 ayuu marayaa hoos ayuu usoo dhacayaa marka ilaa uu kasoo gaaro maaragtay mataqaanaa 88 dib ayuu usoo laabanayaa 83 uu soo laabanaya ilaa uu ka gaaro mataqaanaa 20 ilaa 30 meelahaas oo kale ah routerkaaga mar walba wuxuu sameynaya mataqaanaa had almost weli ma uusan soo laaban kan wuxuu maraya 52 si tartiib ayuu usoo laabanaya mataqaanaa ramkaaga maaragtay processorkiisa halkaas aan uga gudubno aan ku laabana mataqaanaa GNS3-gani GNS3-ga markaa sidaan ugu soo dhalisgarayso wax configuration oo haysta ma jiraan waa inaad configuration ku sameysaa seriyaasha waa inaad kusoo xirtaa waxaad dooranaysaa configuration click ayaa ku siinaysaa kabacdi waxaad tegaysaa router 1 kabacdi waxaa imaanaysaa slog serial 1 serial 2 interface dhammaan oo kusoo wada xiraysaa click ayaa ku siinaysaa halkan slog 1 slog 0 slog 1 slog 1 aad click siinaysaa NMFF3-gan waxaa laga soo gaabay mataqaanaa in uu yahay interface fast interface gigabit waxaasoo dhan slogan kan waxaa ka dhiganaysaa mataqaanaa NN43-gan waasana waxaa loogu talagalay serialka in lagu xiro kabacdi waxaa imaanaysaa apply wuxuu ku leeyahay you have the start computerkaaga waa dib ina u restart garaysa okay apply okay hadda uu noo qaatay markaan click ku siino waa arkaysaa umaleynaa saa markaan u dul saarno serial 1 serial 2 serial 3 all waa wada leeyahay waxaad tegaysaa mataqaanaa console boardkan si aad mataqaanaa routerkaaga u dhex gasho u kacayaa umaleynaa ujeedaa soo mataqaanaa balaag shid balaage inta laga leedahay inter routerka ku imaaday enable IP interface brief aa leedahay sidaad aragta mataqaanaa inta maaragta kugu xiran waxaa maanta halkan ku aragnay sida routerkaaga GNS3-gaaga mataqaanaa aad ugu soo shuban lahayd computerkaaga kadib casharada soo socda insha allah waxaan ku arki doonaa in routerkaas GNS3-ga oo software-ka aad ku xirto PC-gaaga caadiga si aad telnet ama mataqaanaa oga ping garayso after kabacdi waxaan mataqaanaa nagu xoogin doona sidaan mataqaanaa u sameyn lahayn topology-yadii kabacdi mataqaanaa aan u siin lahayn IP address-yadii kabacdi aan u siin lahayn mataqaanaa protocollada sida asagoo mataqaanaa ERGB OSPF dhammaan casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin soo jeedinaa anigoo ah maxamed